waarigta cunada ay cunayaan inuu sameeyo ahayd oo sun ugu daray because wuxuu ku helaa darajo imaamus hadduu sameeyo lahay boqolaal ku dhima lahayd asigana darajo imaamus ku helaa nigu ugu horeeyay ee shabaabka cadawga sameeyay sunta ku dilay oo ngalahay waa shabakada ama koox isku shaqaa dhagar ka wada shaqeeya dhanka sana ka dhisnaa oo xitaa xariifiin ku ahaa isticmaalka location ka tilmaama goobaha iyo jihooyinka kuna xiran satellite-ka shacab Soomaaliyeed ayaa safashili walibana u sahlay inay gacanta ku dhigaan hay'adaha amniga laba ka mid ah kooxdan oo lagaga sii gudbay shabakada inteeda kale shantii bishii 2024 marxuum nabadoon Xaaji Muuse Haruun Aadan iyo marxuum kormeer labaad booliiska Nuur Xuseen Calasow ayay dileen afar dhagar qabe uu ka mid yahay Cabdi Cabduqaadir Maxamed halka saddexda kalena ay baxsad yihiin marxuumka dhintay ayaana xilligaasi gargaar ka waday xaafadda Tabeelaha Sheekh Ibraahin ee degmada Garas Baaley waxaana weerarkaas uu dhaawac ka soo gaaray eedeysane Cabdi Sahmiye Bajaajle Yuusuf Maxamed Aadan seedigiis horjooga Qaalid ayaa xiriir loo isticmaalayo location-ka ku hagay goobta dilka uu ka dhacay si loo soo qaado Cabdi Cabduqaadir oo dhaawac ah sida loo maareeyay howlgalkan xiriirka shabakada shaqada shacabka ay qabteen talaabadii laamaha amniga intaasba waxaa fadhigan ku soo bandhigay xeraliye Cabdi Yare mudane gudoomiye eedeysane Cabdi waxaa loo soo wareejiyay Muqdisho waxaana lagu soo xiray in lagu magacaabo Yuusuf oo kamid ah horjoogayaasha dilalka dhagarta ah ka fuliyo gobolka Banaadir wuxuu qiraal yahay inuu qayb ka ahaa laba dil oo lagu qaaday laba qayb ama daanta u kala dhigo nabadoon iyo askarigiisa oo staff ku ahaa iyo dil loo geystay askari Soomaaliyeed oo ciidanka dawladda labada dil waa laba qof oo saddex qof waa meeshan saddexda qof waa saddex qof oo qiimo gaar ah uga fadhiyo wadanka marka loo eego dilalka wuxuu ka geystay askari ka tirsan ciidanka dawladda wuxuu ku dilay ex control askari ka tirsan ciidanka dawladda oo askari Soomaaliyeed ah oo askari qiimo badan ah ayuu dilay wuxuu leeyahay waxaan lahaa gacanka labaad macnaheedu waxa waaye waan dhameystiray ilaa uu ruux baaw mudane gudoomiye arxan darada ninkaas ka muuqato waxay ku cadeynaysaa waan dhameystiray ayuu gareen leeyahay macnaha askari Soomaaliyeed waan dhameystiray leeyahay mudane gudoomiye dilka labaad wuxuu ahaa dilkii loo geystay nabadoon iyo askari la socday oo darawalkiisa ah nabadoonkii askari la socday nabadoonku meesha wuxuu ka qabanay nabadoonku wuxuu ahaa samafale hay'adaha caalamiga ah tusay barakacayaasha masaakiinta waxay u baahan yihiin meesha wuxuu ka doonay asbaahay heesama wuxuu ka doonay dadka masaakiinta in loo gurmudo inuu ka shaqeeyo waa dareemi kartaan marqaatigii Cabdullaahi wuxuu yiri dadku soo aruurshay waana la qoray wuxuu ka shaqeeyahay waa samafal ninka samafal ka shaqeeyahay marka qawaaridtu waxay u yaqaanaan cadow u yaqaanaan sidaas ay u dabar jarayaan mar mid walba oo qof walba hormuud u ah dadkiisa sidaas u dabar jarayaan eedeysanaasha waxay ahaayeen afar ay ahaayeen waxa meesha lagu dhaawacay eedeysane Cabdi Cabduqaadir qiraal uu leeyahay asaa qiraal in meesha lagu dhaawacay eedeysane Cabdi waa dhagar qabo weyn uu yahay waxa ku cadeynaysa wuxuu dilaa bis dadka indhaha bulshadu ah yaa kamid ah nabadoonada kamid ah askarta kamid ah hordoolka bulshada waay nabadoonku dilayo nabadoon waxa waaye qiimo gaar ah uga fadhiyo waxa waaye deegaankan iyo deegaanka hadda uu lagu dilay mudane gudoomiye qof caawinay masaakiinta aragtay isku dul nool caawinay ninkii dilay ayaa hor fadhiyo waan dilin la taagan macnaha nabadoonka oo dilay staafkiisa waa kuwa marxuuminta waa kuwana mudane gudoomiye qaabkay u dileen nabadoonka xataa madaxiisa waxay ku dhufteen xabada tirabeela ayay ku dhufteen mudane gudoomiye staafkaas ayaa ilaahay u baxsho ninkaas dhaawacay ninkaan hor fadhiyo waxa dhaawacay waa darawalka kormeer labaad oo booliisana waay mudane gudoomiye goobta lagu dilay nabadoonka waa goobtaas wuxuu u tagay cidlada waxa waaye barakacayaashiis inuu caawiyo darajo iyo maamuus ayuu lahaa laakiin qawaaridtu ma yaqaanaan waxaas waa qawaarid ilaa wax macnaa ugu fadhiyo ma laha mudane gudoomiye waxaan ka sii daran bajaajtan ayaa lagu soo qaaday bajaajtan waxaa ku soo qaaday eedeysanaha labaad Yuusuf dhagar qaba dil fuliyay ay inuu badbaadiyo lama amni ka badbaadiyo ka shaqeynay mudane gudoomiye ninka aan sheegayno nina badbaadi rabay mootadana ku soo qaaday
ilaaha ciidamada amniga ceelasha biyaha iyo deegaanka dadka ku nool u baxshay eedasan yuusuf wuxuu qayb ka ahaa marka siduu qiraalka yahay dagaalo jidgal ah oo lagu qaaday ciidanka asna aftirkiisa dagaalo qayb ka ah oo jidgala eedasan yuusuf wuxuu go'aansaday inuu ka tago jabhadda inuu ka tago go'aansaday oo walaalkiisoo taleex degan uu umaado maxaa dhaca kadib marka intaas kadib mooto bajaaj loo gaday aabihiisa mooto bajaaj u gaday waxay ahayd inuu shaqaysto walaalkiisa mooto bajaaj u gaday waxay ahayd inuu shaqaysto intaas waa uu carfays macnaha ilaa nin bartay inuu dilo muwaadiniin Soomaaliyeed ma joogayo wuxuu bilaabay in uu la xirto madaxa dilalka gaadmada ah ka fuliso degmooyinka xamar waliba 5 degmo ka fuliyo oo qaybta galbeed ah oo la yiraahdo Khalid ayaa wuxuu ku tashkiilay mootooyinkaana iska gado yiri mooto lagu gadaa mootada waxaa gaday oo iska leh qawaaridta iska leh 2700 laga baxshay waxaana lagu dhahay waxaan ugu shaqeynaysaa application la yiraahdo digital campus kaas oo loo isticmaalo sahminta tusaale qaraxyada marka wadankan la rabo daarso maalkii deegaankan gobolka Banaadir in la soo galsho marka la rabo qaraxyada asaga la daba dhiga gaariga meesha uu maraayo dhan asaga la socona wuu qaban jiray ilaa suuq xoolaha inuu bambooyi balaagiyo asaga kala leh mudane gudoomiye sahmintaas uu qaban jiray eedasan yuusuf marka wixii dhamaay iyo digital campus kan iyo lacagtan 2700 uu aqbalay isagoo macnaheedu ay tahay inuu badbaadiyo dhagarqabayaasha inuu qaraxyadan geeyo meelaha loo rabo eedasan yuusuf marka saas uu ku aqbalay mudane gudoomiye eedasan marka wuxuu sameyn jiray shaqada saddexaad uu qaban jiray waxay ahayd inuu kontaroolo barkantoolada ciidamada ay leeyihiin qaabka u yaalaan midka cusub midka soo kordhay goormee macnaha la dhigay barkantoolka sidoo u yaalaan waxyaabahaas oo dhan ka shaqeyn jiray mudane gudoomiye marka barkantool walba oo la mari karo oo inay qawaariid isku dayaan inay degmooyinkan magaalada Muqdisho ay qarxis soo geliyaan ayuu ka shaqeyn jiray inuu kontaroolo oo fiiriyo balse ciidamada amniga oo feejigan ayaa heeriyada cadawga iyo istidlaacidnimadooda iyo basaasnimada ay fulinayaan iyo waxyaabaha dhagarta ay fulinayaan ka digtoon way u suurtagal weys shaqada labaad oo qofka maxaa marka wuxuu qiraal leeyahay in eedeysane mudane gudoomiye meesha si fiican loo fiirsho in eedeysane soo dilay nin nabadoon ah oo nooca aragtaan soo tilmaamnay sifaadka quruxda badan uu leeyahay iyo samafalnimada iyo bini'aadanimada gurmadkaas deegaankaas u tagay ninkii dilay ninkii soo qaadayo muxuu dhaamaa markii inuu dilay ninkii dilay ninka fujinayo ninkaan uu baxsad ka shaqeynayo dadka marka ciidankii iyo dadkii deegaanka ilaahay u baxshay ee nabadoonka lama arki lahayn cid dishay wuu soo qaaday wuxuu sheegaa inuu dhowr mar ku fikray meelo mar lahay wuu suurtagal weys ilaa waan la socdaa qawaaridtan waa fashilmatay mudane gudoomiye nabadoonku waa kana marka ninkaan qiimaha badan ninkii dilay ninkii baxinayo inuu baxsada ka shaqeynayo mudane gudoomiye ninka sheegay eesan yuusuf marka waxba ma dhaam waa gacan siiye inuu baxa ka shaqeynayo wuxuu ka shaqeynaa eedeysanaha koowaad oo dilka geystay inuu baxsado jabhad yacquub xasan cabdullaahi maalgeliye qawaarij cabduqaadir maxamed aadan ariirow iyo keediye maxamuud maxamed aadan ayaa iyagana siyaabo kala duwan ugu lug yeeshay falal argagixisnimo iyo gacansiin qawaarijta ah markana xeraaliye maxamed cabdullaahi khaliif bal xoogaa sharxaad ah inaga siiyo waxa uu yahay habka isticmaalkiisa abka digital campus waxaan rabnaa inaan ka dabageyno qaabka uu muxuuha falka u dhacay iyo sida loo isticmaalay qaadista eedeysane cabduqaadir mudane gudoomiye markii cabduqaadir uu dilay nabadoonka iyo askariga la socdo staafka ah askariga qorigii watay xabadii uu riday oo iska difaacaheeda isha ugu dhacday isaga maadaama uu dhaawacmay uu meel laamiya yaallo waxaa loo baahday ninkii in la soo qaado horjoogaha Khalid oo shabaabka hadda dhex jiro ayaa wuxuu wacay Yuusuf amaruu ku siiyey inuu tago goobta uu dhaawac yaalo uu ka soo qaado Yuusuf goobti ma yaqaan ninka u socdo ma yaqaan suu ku tagaa marka su'aasha taas waxaa lagu amray oo labadaba isticmaalayeen application la yiraahdo digital campus ay isticmaalayeen amiirka horjoogaha maqan iyo eedeysana Yuusuf maadaama uu bajaaj leeyahay magaalada
cirifkeeda joogo inuu goobtii tagaa laga rabaa applicationkii labadaba furteen serial code jiro oo loo diraayo horjooga Khalid waxaa diraayo Yusuf si uu ula socdo dhaqdhaqaaqiisa markii uu helay dhaqdhaqaaqiisa ayuu hagay ilaa uu goobtii uu ka tagay luuqan ka leexo xaafadan ka leexo xagga tag inta aad ilaa uu goobtii ku tagay applicationku marka asalkiisa sida ka muuqata magaciisa campus waa jihooyinka loogu talgalay in jihooyinka muxuu ahaa qofka uu ogaado afarta jiho normalka ah laakiin digital waa kan waxaa la socdo GPRS la socdo oo jihooyinkii ku dheer inuu laamiyadii ku sheego goobta socodka ku sheego iyadoo satellite-ka uu laga xiriirinayo application-kaas wuxuu fudaydinaa uu suurtagelinaa in qofka la qaadayo iyo ninka qaadaya isku xirmaan laakiin application-kaas wuxuu fudaydinaa inuu dhaqdhaqaaqaaga adigana la socdo asigana uu iskula socdo xitaa wuxuu ku sheegaa daqiiqadaha uu ku jiro inta mitro ku jiro ilaa uu ku kor yimaado marka waxaan rabaa application-ka markii hadhow qiraalka la gaaro akhrintiisa inay saas loo fahmo application-kaas waa isku xire wuxuu isku xiraa laba qof oo laba meel kala joogto iyadoo la isticmaalayo satellite-ka korkeena marag furayaal goobjoog ka ahaa goobta uu falka ka dhacay ayaa sidoo kale garsoorka la hadlay iyana ku-xigeenka xiriiryaha guud ee ciidamada qalabka sida Cabdicasiis Cusmaan Faarax Cabdiyare ayaa guddoonka ka codsaday in eedeysanayaashan lagu qaado qodobadii sharciga ah ee xafiiska xilaalinta ay ku soo kala eedeeyeen noo gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh waxaan cadeynay oo xafiisku ku dadaalay inuu cadeeyo asigoo maraqaatiyaal goobtan keenay inuu marqaatiga koowaad inuu maqlay xabado inuu soo baxay oo goobtii inuu arkay nin dhaawac oo meesha yaal inuu arkay nin gaarigii nabadoonka wadanayo intaasna uu dad raashay oo dadaalay oo dadkii ku wargeliyay noo gudoomiye eedeysanaha koowaad marka Cabdiqaadir marqaatigaas loo hayaa caadi ay u arkay waa arkay soo dhaawacan soo xabadaridayo noo gudoomiye marqaatiga labaad aan qoobta keenay wuxuu cadeeyay inuu xataa nigi yaqaan midabkiisu sheegay maarin inuu ah noo gudoomiye marka waxa dareemaysaa shaahidiin cadlin inaan goobtan keenay lamar labo eedeysanaha koowaad noo gudoomiye waa qiraal wuxuu qiraal yahay marka hadaa fiirsan saddex dil inuu ka qayb qaatay saddex qof inuu ku maqan tahay qofka koowaad yaawa askari ex control lagu dilay labaad yaawa inuu dilay nabadoon marxuum xaaji muuse haruun aadan oo ahaa nabadoon samafala ah oo dadkiisa halkaas degan iyo dadka Soomaaliyeedba u gargaaray ee soo qoray intuu awoodo intuu dad ugu soo qaadi kara ka shaqeynay inuu kaalmeeyo dadkaas barakacayaasha ay meesha ku sugan iyo marxuum kormeero labaad Nuur Xuseen Culisow oo ah darawalkii waday labaduba yaa dilay marka labaduba waxaa dilay eedeysanaha koowaad Cabdiqaadir Maxamed maxaa ku cadeenay laba maragan keenay maxaa kale oo cadeenay waxaan keenay isagoo qiraal oo la taagan anaa dilay asaga qiraal leh oo la soo taagan maxaa kale oo cadeenay goobtii ninkii ka soo qaaday ee asoo dhaawaca soo qaaday sanaha labaad ayaa ku marqaati kacay hadda inuu asaga soo qaaday sanaha labaad wuxuu leeyahay yaa ku soo xiray linkiga yaa lahay horjooga Khalid jaaw xubin dhagar qaba ah oo ka tirsan qawaaridta marka linkigaas fiir mid gudoomiye toos inta soo aad meel uga leexana male hadda linki dhankiis la aado yaa ku soo xiray ninka lagu soo xiray muxuu yahay ninka lagu soo xiray waa asaqiraal leh inuu al-shabaab yahay ninka ku soo xiray oo la soo waday mooto soo saaraya waa shabaab kale waa qawaarij waa oo dadka daabulo waa marka eedeysanaha koowaad saddex sifo ayuu ku sifo sifada koowaad marqaatiyaal fiican oo shaahidiin cadlina oo inta laga dhageystay waxay ka marqaati ku caayaan oo kitaabka jaamaca oo sida saxda in qofka la saaro dhaarta marsiye tahay la marsiye ayaa cadeeyay dilkii inuu asiga geystay lambar labo waxa cadeenayo asaga qiraal leh oo soo taagan linkiyada aan soo bandhignay oo si isku xiriin way cadeenayaan mudan gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta marka eedeysanaha koowaad halkaas ay u gudbayaa nabadoonkaas masaakiinka ah mudnaa maamuuskii sharaf dawladda dhankeeda ka mudnaa ayay qawaaridta dhaafsiiyeen maxaa yeelay indhaha ay dadka ka ridaan qawaaridta macnaha qawaaridta waxa waaye indhaha bulshada ma dhaafaan way dilaan qof walbo indhaha bulshada
أي دلان من قدومي مركا نين قيمة أصله أيونا دافسية إذا سنة كوات مركا عصنينا إذا سنة كوات ما دام أنتاس وحيابا عن صوبان ديني أو بقول لحد اللي يسد حيرك حبك عقاب سومالي بقول الطبن عن قعد ديني كوضوح الشمس والليل كاس هذا افتيما عمل إيته عن عصنينا إن دلتو وشاء لغوحكم أوه قصاصتي لابا مرحوم نبضون حاج موسى هارون آدم إيوه مرحوم كرميرا لباد نور حسين على سو ولبدا ودن كان إيوه دد كان بقيمة قارة وفردين وعن عصينا من القدومية إن قصاص تاس أي محكمة إيوه كفلسو ما دام أي تاي واختمنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين من القدومية سورة كل حن كسو إيدي آيات بقول تباتي سديدات سورة البقرة وشيء قف دين إلا دلو سيدي سبب وما يقتل مؤمنا متعمدا ودلي مؤمن ودلي مساكين ودلي سمفل ودلي من قدامي نك أشيء حن عصرنا مركا إن قصاص تقولها أي مرسيس محكمة إيه سنة على بعض يوسف محمد آدم حن كو إيدينا من قدامي يوم إيدينا يكو عد هاي وعن صوبان ديني بقولي سيد حن صوبان ديني إنه قيب كأها دلك مرحوم محايا لي محوسمي وحو بدباديي وكشقي إنه بدبادي واي أنا سنة كواد دلك رمضان مساكين كدلي أيو ربي إنه بدباديو وصوق هذا من قدومي أنا سنة على بعض ونن قطرة وعيا قانا وحيابها عجيب كاي موبايلنا ليالو بلا استورك ليالو ديجيتال كمبس ليدا وما لها لقدوس كره حتى ويا قانا سنة من قدومي مركا إذا سنة على بعض ما دام وقعن سيجي إذا سنة كواد كنا قعن سيجي إنه فكضوا الصيغة أودلي نبضون كاس قيمة بدنا يمرحوم ككرميرا على بعض وعن قصة إذا ني قضب كل حد فقر ديس على بعض معي شيء يسا شباب مغرسية يس تببر مسوقات أكفو للزمن RPG وبيكا إيه مصابرت قضب كسد هذا شيء يا مر معه كله شيء سديدات هو صو استعمالي سديد دقالو صو غيب قري جد قلوا هاي جد قل سيدي سوى إلا الدلواي عادي إن لو الدلواي سيدي سوى من قدامي شني طبعا أباب الدنبيو كغيب قاتيون نين نبضون دليو إنه سوى بدبادي سكدي كغيب قال شو شمي لباستي كواد وقعن سينو سمي أو حيرك على دقالن كأرجع سدا من قدامي مركو حان عصينا إلى سنة اللبات أدام أن دل كوهرين وفقوا دلان كوهرين حان عصينا إن حبس الدائم يكون حكونتو محايا لي إنتاس أو كلون صد أو قضباء حقول صد شباب واي قعنسية واي شباب قدر وحوك سيا قوة توبرتو قوة دقالة كسيا هاي أكفر يسمونه يغانا RPG يغانا أنت أظنين كلهم صد واي حبس الدائم يكون حكونتا محكمتك عصينا إذا سنة وإذا سنة قطر أو أقوين من قدام إذا سنة سدحات من قدام يعقوب حسن عبد الله جب هذوها ملو صبحنا بله وعديني وحان عديني إنه نكسب إنه جب هذا أنت الله كاني إنه بساس نقول هاي لي دكان كأو جدايو وحكجنا عسنايو دتك دولة دكوسنول حتى عيدنا الدولة كان عسنايو حكتو إنه بحجري أي بقول بحنسا هاي لي فكر كاديو كبحي دولة ما دين فكر كالشباب لكن بحي بكرة بدي بحس ما يسي ميلو لو ودك ودتك النظام ممرين جبهة واي مركا جبهة نميس نحن عدينا يسمى من قدوم توبروا صومر قضب كنت مناد عليه توبر بحية يو توبرقات واي من قدومي مركا عصرنا عسكرة ما دام توبرقات ساس علوسوها ولي بقول يكان سيد الله ففر أكفر الزمن أو يكان BKM كسي الله ففر عن عصرنا من قدومي سنة قضب بدأ عن قصة إيديني إني محكمة كحكونتو ولي بالشباب نيسو يعد هاي إني محكمة كحكونتو لبعض سنة عصرنا محايا لي قضب بدأ دقال قضب بدأ وقرالك يا دقال من قدومي إذا سنة أفراد عبد القادر محمد آدم أريلو إيوه إذا سنة شناد محمد آدم سيجار وحنا قصوا إذا عبد القادر إنه بجاج جد جري إنه أرجع سمال جري من مرسيدس دي لك سو قدبو عبد القادر شن يتمن بي أيو الشباب فكر كود قادناي شن يتمن بين الشباب فكر كود قادناي يا تلاقارك شن يتمن بري وقادناي شن يتمن بري كوح أرجع سي الشباب هل مال إن على فديس شباب نمو قضاء ميلوين اللي قداش معهم هل مال إن على فديس
ayaa shabaab lagu noqdaa midna gudoomiye marka waxaan codsanaynaa eedeysanahaasi wuxuu u galay qodobka 6 faqradiisa labaad midna gudoomiye waxaad eedda ka dareemaysaa si aan u dulmin faqradiisa labaad maxay tilmaamaysaa xubinka noqosho tilmaamaysaa tababar ma sheegayso tababar ma qaadan boqodir laakiin xubinka noqosho waay fikirkii uu qaatay uu ka qayb galay dowro balaayo ay ku sheegayaan ay ku soo shubeen dhagarta iyo ummadda si loo dilay indhaha si dadka loogu riday ku soo shubeen waxaas ma ka dhaqmay xirasaniinta loogu dhaqmaahay ma ugu dhaqmin mana iimaan mana tagin min gudoomiye markaasna waxaan codsanaynaa 18aad oo ka qayb qaadashaan ku soo eedeynay inay maxkamadda qodobkaas ay ku qaado ninka shanaadna waa keediyo weyn waa ninka ka qayb qaatay shabaabka cunnada loo dhigo dukaankiisa qawaarigta cunnada ay cunayaan inuu sameeyo ahayd oo sun ugu daray ahayd because wuxuu ku helaa darajo imaamus ma shaqeey ma ka shaqeey ma shaqeyn wuxuu badarkoodu sidoo u siyahay hadduu sameey lahay boqolaal ku dhima lahayd asigana darajo imaamus ku helay nigu ugu horeeyay ee shabaabka cadawga sameeyay ee sunta ku dilay uu noqolahay aaway imaamuskaas uu ka faa'iideysan waayay shabaab waa marka maxaa yeelay asaga ka faa'iideysan waayay jaaniska qawaarigta uu ka helay marka maadaama uu aaminsan yahay 45 cishna tababar uu soo qaadanayay waxaan codsanaynaa qodobka 6 faqradiisa labaad uu galay 18aad uu galay wuxuu ka qayb qaatay cunnadii uu ka qayb qaatay wuxuu kaloo ka qayb qaatay amarada ee baxshaan qawaarigta inuu ummadda ku sii furo waxaan codsanaynaa marka qodobadaas in lagu qaado maxkamaddu ay maasan tahay qareennada eedeysanayaasha oo difaaca muwakkiliintooda jeediyey ayaa dalbadeen maxkamadda ay xorriyaddooda dib u siiso eedeysanayaashan 184 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ka maqraati kicidda qofka shay wuxuu arkahayay ma buuxin eedda waxaa qaaday eedeysanaha labaad mudugudoomiye garsoore sida uu qabo qodobka 197 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed dambi had lagu wada eedeynahaye dad qayb kamidana ay sheegtaan qaybta kale inay kula jireen ilaa cadaymo ka baxsan qofkan dadkan la eedeynayo dhaxdooda la helo moogiye gundhig loogama dhigi karo dhaxdooda waxa ay isku sheegaan saa darteed maxkamadda waxaan ka codsanaynaa xukun soo saaritaankiisana ha noqdo wuxuu asaga maxdarka uu ka sheegay oo anigu dambiga ma gelin maxkamadduna maasanta mudane gudoomiye muwakkilkaygu sida uu sheegay eedda xafiiska xiraalinta uu ku eedeynayo oo shabaabnimadii hore asal inuu shabaab soo ahaa uu kana soo baxay sargaal booliis isu dhiibay eedeysanaha Cabdulqaadir maxamed eedeysanahaas oo uu qaaday Cabdi Cabdulqaadir ayaa eedan loo haysto ugu xoog badan sida dhabta aana laamaha cadaaladda iyo baaritaankii iyo ma uusan samaynin wax la yiraahdo marxabaamin say wuxuu jireen meeshuu ka soo qaadayna wuu sheegay meeshuu geeyana wuu sheegay in nin oo shabaab oo qaad yiri oo ku amrana wuu sheegay mudane gudoomiye garsoorayaal maadaama asaga qiraalkiisa mooyaane wax ka baxsan xafiiska xiraalintu si waafaqsan 110 si waafaqsan 168 cadaymo kale uusan keenin ee maxwarku uu ku wareegayo asaga inta asaga qiraalkiisa uu ku wareegayo wax ka baxsan aysan jirinin waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa si waafaqsan qodobka 4aad faqradiisa koobaad xarafka ga sifaaraha dembiga fududeeya inay maxkamad u fiiriso waa nin xaas leh caruur leh inuu shaqaysto ku talagalkiisu ahaa waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa inay qodobkaas u fiiriso oo dhammaan eedaha xafiiska xeer ilaalintu maadaama cadayn aysan wadanin iyo dalbashada ay dalbanayso qodobada tirada badan oo uu ku dalbanayo xabsi daa'in intaba inay ka diido
baan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa isagana ay u fiiriso qodobkaas ay fiiriso maxkamaddu waa mahadsanta waxaan qareen u ahay yacquub xasan cabdulaahi mursal kaasoo markii loo akhriyey eeddiisa ku jawaabay si waafaqsan qodobka 104 faqradiisa 1 xarafkiisa ba eedda loo soo jeediyey oo ah qodobka 6 faqradiisa 2 iyo 3 kaasoo ay ku soo eedeysay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida eeddaas oo ah ka mid noqosho ururka argagixisada al-shabaab iyo qaadasho tababar yacquub waxaa loogu soo jeediyey eeddaas inuu galay wuxuuna uga jawaabay sida qodobka ku qoran wuxuu ku jawaabay oo ah 104 faqradiisa 1 xarafkiisa ba sidaas darteed maadaama uu yahay nin muddo baranaya diinta islaamka kadibna ka shaqaysanaya dukaan ku yaala bakaaraha lagana soo xiray asiga iyo ninkii iska lahay dukaanka dibna loo fasaxay mudanihii iska lahay dukaankiisa waxaan maxkamadda ka codsanaya in yacquub xasan cabdulaahi mursal xurriyaddiisa ay siiso maxkamaddu maadaama aan wax kale loo haysan marka uu gelayay dembiga lagu soo eedeeyeyna uusan ahayn mas-uul dembi laguna cafiyo sida uu qabo qodobka 126 maadaama uusan ahayn mas-uul dembi maxkamaddu waa mahadsanta xafiis xeer ilaalinta cabdiqaadir wax isku xiran yahay maanta isku xiran yahay oo maxkamadda loo hor keenay xafiiska waxaa la rabay inuu caddeeyo mana caddaynin marka maxkamadda sharafta leh anoo aan ku dheeraanayn waxaa ku soo koobaa cabdiqaadir marna lagu qaadan karo qodobada xeerka la dagaalanka ah oo argagixisada lagu soo eedeeyey cabdiqaadir horta lagu qaadan karo mana qabanayo waxa lagu eedeeyaa haddii dembi ay yihiin qodobo kaleeto sharci ah in loo raadiyo ay heday ma aha shaqo kuma laha wax dembi oo cabdiqaadir maantaas galane ma jiraan maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanayaa maadaama xafiiskaas soo caddaynin waxna askeenin caddeen ku filan oo maanta la hayo oo maxkamadda horteeda ka caddaatan aysan jirin oo ku saabsan cabdiqaadir maxamed aadan maxkamadda waxaa ka codsanayaa inaa xorriyaddiisa ay u celiso maxkamaddana ay u fiiriso 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya maxkamadda sharafta leh waa mahadsanta mudane gudoomiye garsoorayaal maxamuud maxamed aadan xeer ilaalintu eedeera waxay ku caddaysay in uu yahay kaydiye al-shabaab una kaydi jiriyey raashinka wax allaale iyo wixii ay u baahdaanne oo u iibi jiriyey maxamuud haddii loo jeedsho eedda 103 104 wuxuu ku jawaabiyey waxa lagu eedaynayo in uusan gelin xeer ilaalintu waxa waaye niyaabal caama ama waa dembi oogitaanka dembiguna wuxuu u baahan yahay haddii qiraal uusan jirin bayino ayuu u baahan yahay nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam albayinatu cala almudacii wax caddayn ah oo sheegashadiisa ka soo hiray inuu kaydiyo raashin ou yahay mudane guddoomiye xeer ilaalintu maxkamadda ma keenin waxaa waajiba sida ku cad qodobka 163 waa in uu faldhacaa eedaysanuhuna uu yahay falkaas ku ka mas-uula maxamuud waa beri sidaas darteed waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa mana muuqato beriga nin qabasho u baahan dalka iyo diinta iyo dadka nin in laga qabto u baahanna xujadeer xeer ilaalintu waa keeni weyday
waxaan maxkamadda ka codsanayaa inaysan aqbalin codsigiisa codsigeera aan dhehe inay xornimadiisii ay u celiso maxkamadda waa mahadsanta maxaa lagu xiro samaysa nina qaadi wuxuu yahay nimo aaw ninka qaadi waa kana kee waay abdulqaadir wuxuu yahayna ma ogi yaa qaad ku dheh nin khaalid dhaa qaadi dhah haye waa ka aamusay laba beri kadib ay soo wacayniyow wixii dhacay waa dhaceene raali noqo laakiin waxaa kaa rabaa inay ila shaqayso maxaa kaagala shaqaynaan dhahay markaasuu dhahay magaalada gudaheeda yaa igala shaqaynaysa markaasaa waxa ii soo bandhigay wax la dilayna kuuma diraayo waxaasaa ii soo bandhig laakiin waxaa igala shaqaynaya inay meesha aad marayso ii sheegto mootada meesha oo mootooyinka magaalka ii joogaan inay ii horumarto waddada ka horumarto intaasaa igala shaqaynaysa mithaal ahaan tarbuunka adigoo taagan yaa mootaa gadaashay taagan laakiin ma ogyaan weligayna ima sheegin weligayna ma arkin mooto baar wax tag saasuu dhaha baar waxaan tagaa kadib waa fasaxan tahay waxaa kula jeeda ma ogi baar wax tag tarbuunka taagan tahay baar wax tag waa baxa baar waxaan tagaa haggee taagan tahay baar wax waa fasaxan tahay waxaan kala shaqaynaya waa intaas keliya markaas muxuu ka rabaa muxuu fahmaa abkan iyo waxaan maxay tahay applicationka abkan waxa isaga ugu waabsanaya inta badan saasaa u badan tahay saa u qaatay applicationkaas lasoo dego dhahay waa lasoo degay waa kula socdaa ay dhihi jiri inay ugu waabsanaya inay run tahay in kale ma ogyaan laakiin lasoo degu dhahay waa lasoo degay waa kula socdaa meesha aad joogto marka lasoo degto kadib maxaa sameynaya asiga usoo koodaa dire koodkaas markaa u diro asaa isoo waca meesha aan taagan tahay waa kula socdaa saas waaye waxaasaa ii sheegaya waxaa kula socda oo asaga ula jeedadiisna ma ogi mudana gadoomiye intaasaa jirta weligaa marka adiga abka inta lagu soo intaa kood dirtay asagoo ka haray ma tagta meesha ku tilmaamay may ma baroobeyn waa kaa laakiin mootaa gadaashaa soo socota inay faaruq tahay inay wax wado weligay ma ogaanin weligay ma arkin marka meesha ciidan ma joogaan halkaas waa la jooga saas le waa marka sheekada macnaha wallaahi meel iidan joogo weligayba kuma aadin mana u sheegin waddadan highwaygaas ka maraa xaggee joogtaa baaruwa waa fasahan tahay xaggee joogtaa alakamiin hore soco shaqadaada qabso marka khaalid markaas muxuu yahay muxuu qaabilsan yahay khaalid ay soo wacay anoo akas joogo oo iska shaqaysanayo ay soo wacay soo carar uu dhahay tabeelaa imaaw waa soo baxay tabeelaa imaaday markaasaan dhahay niyow tabeelaa waa joogaa waxaan u malaynaya hor u soc ama waa fasaxan tahay saasaa u malaynaya markaasuu dhahay xaafadda gacantaada midiga meesha oo baabuurta lagu barta oo villooyinkaa meeshaas tag qofaa khadka ku jiray meeshaan tagay labada qof midna dhaawacay midna waa caafimaad qabaa labadaas qof soo qaad waa ka diiri soo qaadayaan dhahay ileen balinti kuma jirin saas in qof dhaawac la qaado ama wax kale la sameeyo kuma jirin markaasuu dhahay niyow laba mid adaa kaa falanta nimankaas waa soo qaade ama waa diide labadaas adaa kaa falanta xamar dad oo shacabna waa ii joogaan dad hubaysana waa ii joogaan waxaa qasabku waa inay nimankaas soo qaado 3 go-aan ay soo baxday inay ninkaas warkiis diido oo meesha la igu boobsiiyo waa dhici kartaa midda labaad inaan qaado meesha asaga rabo u geeyo midda saddexaad anigoo wada in la qabto waxaan ka doortay mudane gadoomiye inay naftay meeshaas ku bixi lahayd inay ninkan aan qaado wuxuu yahay aan ogeyn saadna ceelasha aan ku geeyo saadna la igu soo qabtay ciidamada amniga igu soo qabteen marka ciidamada amniga ku qabanaya see lagu qabta maxnaa see wax qabashada qaabkee ahayd waxay u qabteen ninka marka aan dejiyey meel aan ku tuuray mootada bacaad iga gashay markii mootada bacaadka iga gashay waa fahmay in la ihaayo waa dareemay kadibna ma baswaalin ciidanka ma hore ku soo aaday mise dad shacab ma shacab waa joogay laakiin shacab ma soo qabanan
askar ay soo qabatay wax shacbi soo qabteen ma jiraan ninkan weligay ma arkin wuxuu yahayna ma ogi yaa ku dira laakiin Khalid Aidar Khalid oo ah nimankaas gaashaale sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdi fataax akhyaar warbaahinta qaranka muqdisho.